waa kulan munaasabadee lagu sharfaayo isla markaana lagu dhiirigelinayo arday guulaystayaal ah kuwaasoo dhowaan ku soo horumaray tartanka xifdiga qur-aanka kariimka ee markas abudajaana ee magaalada Hargeysa. maamul hufnaan leh jecel ardaydiisa ayaa maamuuskani bixinaya waa qalinka qur-aanka ee hadla kutub quraan ah lacag iyo hadiyado la soo xidhay intaas oo dhan ayaa lagu maamuusayaa ardaydan dadaashay ee nafuurka leh u soo samaysay barashada iyo weliba xifdiga qur-aanka kariimka. madashan lagu maamuusayay ardayda ayaa waxa ay ka qabsoontay barxadda bannaan ee isla markaska abudajaana waxaana madasha ugu horeynba lagu furay dhageysiga iyo weliba bandhig cilmadiyadii ay ugu soo talagaleen ardayda markaska abudajaana waalidiintooda iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadani. maamulaha markas abudajaana ustaad cabdalle maxamed maxamuud ayaa ka warbixinaya tartankan ay ardaydani lagu maamuusi doono isla markaana ay ku soo guulaysteen waxaana sidoo kale dhiirigelin siinaya ardayda kale ee iyana aan ku soo guulaysan tartankan. maamula cabdalle waalidiinta ayuu baraarujinayaa waxaana uu siinayaa tusaalooyin si loogula xisaabtamo macallinkan ardaydan loo keenay si markaska abudajaana ay uga soo baxaan arday tayo iyo weliba aqoon leh. waxaan isugu nimi waxaa jira tartan madarasada ka jira oo sanadkiiba hal mar la qabto ama tartan sanawiya. sanadkii hore waynu qabanay waa markii labaad ama waa sanadkii labaad ee la qabto tartanku waa mustawihii labaad ee uu soo gaadhay weeye. ardayda tartamayay cadad ahaan iyo tiro ahaan waxay ahaayeen 30 arday oo habliyeenimo isugu jira. waxay ku tartamayeen wuxuu ahaa laba mustawi ama laba qaybood oo quraanka Ilaahay kamid ah. waxay ahaayeen arday ku tartamaysay jiska 10 jis iyo arday ku tartamaysay 5 jis soo kala qaybsanaayeen. marka labada qaybood ayay 30 arday kala qaybsanaayeen. qayb 10 jis bay ku tartamayeen qaybna waxay ku tartamayeen 5 jis hoose. fasax yaraab inaga soo qayb inaga soo dhaxgalay sida awadeed buu dub inooga dhacay. waxaynu ugu talagalay tartanka awalan marka koobaad in uu yahay nashaad ardayda dhexdeeda ah oo ardaydu marka ay tartamayaan keligii ardaygu markuu diyaarinayo iyo marka ay cid ashayaan ama qeyrku loo tartamayo uu ka dardar badan yahay oo uu ka nashaad badan yahay markuu keligii yahay. waa ujeedooyinka aynu qabanayno tartanka weeye in ardaydu ay nashaad helaan. qodobka labaad in quraanka xifdigiisa la xoojiyo oo ardaygu dawaynu ognahay waxaan waaqacaynu ku noolahay ama bi'adaynu ku noolahay ardaygii quraankii buu dhiganayaa gelina maadu soo dhiganaya ama iskuul buu tagayaa ardaygu waqtigiisu iska yar yahay. marka kulli waxa ku imanaya quraankii waxa ku imanaya dacfi fara badan xagga xifdiga oo ardayga xifdigiisii uu hooseynaya ama uu isdhimaya. in marka xifdiga la xoojiyo oo ardaygu uu noqdo arday xifdigiisa dib u muraajaceeya ayaynu ugu talagalnay. waxaynu kale ugu talagalnay in ardayga soo baxa uu ogaado in la karaameynayo uu ogaado inuu qiimo ku yeelanayo waalidkiisa iyo macallinkiisa iyo ardaydiisa dhexdoodaba intaba qiimo ku yeelanaya. ardayga ka hadha tartanka ama ku guulaysan waaya wuxuu isna dareemayaa in maalin aan maanta in jaaniska uu leeyahay inuu jaaniska leeyahayo haddii maanta uu hadhay oo saaxiibkii uu ka dheereeyay ama walaalkii uu ka dheereeyay berri inuu isugu yeelan doono oo uu yiraahdo maanta jaanisku way iga buuxsamay bal beritaha la eego fawaa'ida uu leeyahay ama ujeedooyinka inuu qabanayno ayuu ka mid yahay tartanku. waxaan ku soo gabagabeynayaa ardaydu labada mustawi ee aynu u qaybinay 6 arday baa laga doonayay. insha Allah ta'ala ma noqonayo tartanka ugu dambeeyay laakiin wuxuu noqon doonaa tartanka bilowgu noqonaya tartamada soo socda bilowgu maanta u yahay. marti sharaftii qiimaha lahayd ee madashan boqoran ka soo qayb gashay ayaa iyaguna dhiirigelin iyo weliba faa'iidooyinka laga helayo ilmaha yar marka lagu soo tarbiyadeeyo diinta u soo bandhigaysa waalidiinta ubadkooda keenay ardaydooda markas abudajaana. waxaan leeyahay goobtan dugsigan aynu joogno
abudajaana ee maamulaha uu ka yahay sheekh cabdilaahi runtii waa goob lagu soo hirto oo lagu soo hamuumo oo dadku inay yimaadaan oo runtii la garaqootaan oo ay wax ka bartaan bay munaasib ku tahay waayo akhlaaqiyaadka ka muuqda goobta dareenkaaga isbedelaya runtii dhaliilaha iyo horumarka wax walba waa la sheegay dhaliilaha waalidka kolley dee wax meel walba dhaliilo waa jiraan arday baa jira dhaliile waalid dhaliilaa jira laakiin goobtan abudajaana uu ka dhisan yahay waalidiintooda iyo ardaydoodaba waxaan isleeyahay dhaliilu way ku yaryihiin waxaan kaloo mahadnaqayaa maamulka madrasad maxadkan ama markaskan sheekh cabdilaahi oo runtii ah maamule aad u firfircoon oo aad u juhdi iyo dadaal badan kolley in badanna waan aqaanay marka waxaan odhan karaa intii markaskan xaafadda loo furay ama maxadkan xaafadda loo furay wax badan bay kaga diirsadeen isagana waan bogaadinayaa waan u habalyeynayaa waan u mahadnaqayaa waxaanan u dardaarmayaa inuu halkaa juhdiga iyo dadaalka uu ka sii wado maamulka iyo marti sharaftii qiimaha lahayd ayaa guddoonsiinaysa hadiyadaha qaaliga ah ee ay siinayaan ardaydan soo dadaashay ardayda ayaa wejiyadooda iyo weliba qalbiyadooda aad ka dareemaysaa farxad tii ugu weynayd وهيب سريان warbaahinta nolosha islaamka Hargeysa بفضل الله قلبي لا منانا